laba sanadood kadib waxaanu safar ugu baxaynaa maamulada Puntland iyo Somaliland. Puntland xaalkeedu waa heedadow yaalow sahal. Puntland dhulkii udugu ilaa haatan may helin hoggaan u horseeda halkii la rabay. Puntland waxaa ku dhacay xaraash ba'an oo aan meel loo aabayeelin. Puntland dhinacaad ka eegtaba duruufo adag iyo dayac bay laheeti soconaysa. dekadii Boosaaso way maqan tahay. daryeel iyo dayactir lagu soo kordhiyay ma jiree dusha wali lagu xamaala. sidii baa gabanada muruqmaalka ah duruufaha ku gadaaman dekada awgeed wadnuhu ugu dhex istaagay. madaarkii badka ayuu yaala. biyihii badda jiriifyada shisheeye ayaa ciraabootiyay. ildu fara badan ayaa dhacay. inkastoo reer Puntland ay ka mid yihiin shucuubta Soomaaliya kuwooda qabka iyo umadnimada la jaalka hase yeeshee waxba iyaga gacanta uguma jiraan. xigtaysiga boobka musuqmaasuqa nin jeclaysiga iyo dhiibtiyo hoo qaado waxay kala mataan tahay Somaliland. warbixin ayaanu ku eegi doonaa kolka hore dhanka Somaliland oo ay noogu dambeysay guud ahaan bahdabaadi goob 2 sanadood ka hor ayaynu ku horay. haddaad ogay Somaliland buu hodlaya badanka gobolka Sool aanu gacanteeda ku jirin. haddii aad la socotay Somaliland ay degaan weynihii Sanaag bari kala boqole. haddii aad ka warhaysay Somaliland awdal Samir Caalwaa ka tanaasushay oo talo loo dhan yahay ay ku baaqayaan. haddii aad ogay dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo gobollo kala duwan warkoodu ka soo yeedhayo. dhankan aan jaleecnay ma ogtahay in xooga hubaysan oo jabhadeed xilligan Somaliland gacanteeda kala wareegeen inta badan baaqigii gobolka Sanaag ee ay ka talin jirtay. dhulxeebeedka baaxadda leh ee gobolka Sanaag deegaanada Cal iyo Guban buuralayda silsilada Guules buuraha madow ee dahabka laga guro waxaa xilligan ka taliya xoogaga jabhadda la magac baxday dulmidiid ee uu hogaamiyo Koroleyl Caar. intaasoo quraya deegaanadaasi keliya maahe waxaa ku lamaan in xoogaga hubaysan ay hanteen quluubta dadweynihii dhulkaasi ku dhaqnaa. waaqaca meeshaasi ka jira maxaa ka runa maxaan ka ahayn. dhulka ay gacanta ku hayaan intuu duu leegyahay ma dhabbaa Somaliland tii aad ogeyd in qaybna madaxweyne biixi amarkeeda hayo qaybta kalena xoogagan hubaysan wax laga weydiiyo. waxay qayb ka yihiin weydiimahan iyo qaar kaleba kuwa idinka dhex guuxaya. sidaasi darteed si aynu uga jiba keenno xaska babdheh wixii ku jiraaba ha ka soo baxeen. waxaanu u xarka xidhanay ka warkeenka wax kastoo dhanka Puntland iyo Somaliland ba ka jira. waxaanu ka duulay magaalada Ankara dabadeed Istanbul ilaa Addis Ababa ilaa Muqdisho Boosaaso. halkani waa gegida diyaaradaha ee magaalo ganacsiyeedda Soomaaliyeed ee Boosaaso. Boosaaso u hooyasho dabadeed lugta hore kumaanu hakane waa aan ka boqol. halkani waa dhabaha haygu soo dhicin. waxaynu sii jeexi doonaa dhulxeebeedka caanka. tani waa ceelaayo waynu se ku soo noqon. tanina waa magaalada Laasqoray. soo noqodka ayaynu soo mari maalmo dabadood. safarku inkastuu dheer yahay buur iyo bacaad ban iyo xeeb Cal iyo Guban dabooyin adag iyo togaga dhaadheer oo dhexdoodu tahay dhadhaaba shuban baynu sii jibaaxi. hase yeeshee xoogaga ka taliya waa inaga warhayaan imaatinkeeda. dhulka waxa waran xareeda. xeebuhu waa bad furan oo waxaa baxay xagaagii u kala jamcin maynee waynu sii wadan. waxaa dumay habeenkii waynu se socon si aynu dhulka xeebta iyo gubanka intiisa badan u sii dhambalo.
saqdhexe weeye in badan waynu soo soconay halkan ayaa inta waagu ka hadhay aanu teendhada ka xidhan dhammaantiin subax wanaagsan socodku mar kale ayuu inoo bilaabnay beegsiga ama taargetkeenna koowaad ee aynu beegsanaynaa waa in aynu soo taabanno fadhiisimada hore ee xoogagani gacanta ku hayaan oo 8 kilomitir u jira Ceeri Gaabo barnaamijka oo dhinacyo badan iyo xogo kala duwan xambaarsan kuma koobna xoogaga jabhadda dulmidiid iyagaynu se ku horeyn hayeeshe in yar aan sharaxaad ka bixiyo dhulkan aynu ilaa iyo haatan sii jibaaxayno waa buuraha kinsiga iyo qaniimada ugu badan ay ku duugan yihiin waa deegaanta qasaayinka ku duugan hanashadooda wadamada khaliijka Carbeed ay ula habooca ugu tukubayaan waa dhul weynaha biyo la'aanta ka caagan ee caanka ku ah qulqulka durdurada biyood waa kaymaha jiqda ah ee meelaha qaarkood habeenkii iyo maalintu ay mataanaha yihiin waa hooygii xabkaha iyo faleenka hodanka ku ahaa waa dhul beereedka Soomaaliland ugu weyn ee waqtiyadii dawladii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ilaa iyo Muqdisho loo dhoofin jiray wax soo saarkiis Somaliland ku filayd ka hor intaan suuqa ganacsiga khudaarta Itoobiya lokoota loogu xulin waxaan soo gaarnay taliska jabhadda gaar ahaan fadhiisinka guud ugu horeyn waa kan caare aminta oo casar liiqa safarka oo aad noogu dheera roobab mahiigaana oo iyana iminka dhibicdana saaray caawa halkan baynu u hoyan saaka waxaanu gudagalaynaa qaybaha iyo saldhigyada jabhadda halkan waxaa ku sugan boqolaal dhalinyaro oo intooda badan ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare iyo jaamacadahaba ciidamada jiidan jooga waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood dadkii deegaanka oo jabhadda ku biiray oo hubkii rasaasta gacanta laga saaray iyo ciidamada deegaanka qardho loogu bilaabay tababarka kuwaasoo tababarkoodii halkan ku dhimaystay waana ciidanka sida weyn u diyaarsan waxayna degan yihiin taliska guud ee jabhadda oo ah halkan aynu haatan ku sugannahay ciidamada kale ee deegaanka ee jabhadda ku biiray oo dhisida iyo diyaarintoodu goob kasta ka socoto mid walba gaarkooda ayaynu u tagay waxaa intaasi wehelisa dhalinyaro iyaga loo tababaro hubka qaybihiisa kala gadisan gaar ahaan hubka waaweyn ugu horeyn waxaan taliyaha weydiisanay inuu noo ogolaado tagista deegaanada jabhaddu gacanta ku hayso iyo ciidamada ay tababaradu u socdaan iyo waliba inaanu duuban karno ciidamada meelahaasi ku sugan iyo kuwa gaarka ah ee taliska guud ku sugan ciidamada taliska guud ku sugan hal meel ayuu isugu geeyay waxaanuna ka qaadnay sawirro maadaama oo uu diiday taliyuhu inaanu wax muuqaala ka duubano sidoo kale wajiyadooda sawiran intaasi kadib waxaanu raacnay mid ka mid ah gaadiidka qalabaysan waxaanuna tagnay ugu horeyn goobaha surud ee ciidamada deegaanka tababarku uga socdo mid ka mid ah dulmigu hadho taliyaha halkan ku sugan ee ciidanka tababaraya waxaa ka mid ahaa saraakiishii hore u maamuli jirtay mid ka mid ah saldhigyada ciidamada Soomaaliland iminkana wuxuu ka mid yahay saraakiisha jabhadda wuxuuna haystaa jiida buurta surud waa ciidan ka tirsan dhaqdhaqaaqa dulmidiid waa guuto ka mid ah ciidamada dulmidiid waxaanu aasaasnay hadeer in badan way aasaasnaayeen iyagiyo goobo kaloo badaniba waxaan markaa halkan aasaaska nagu kalifay anigu waxaan ahaa sarkaal ciidana waxa iga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga soo go'ay oo uga imi dulmiga yaala dhexdeeda
sida aad wada ogsoontihiin ma jira wax la yahay sharci baa dalka shaqeeya iyo ciidanimadu waa sharci wax la yaana ma jiraan waxay asaasan yihiin ridida taaquudka musabix halkani waa irida laga galo deegaanka Madarmoge kolkaad magaalada gasho dadweynaha yar iyo weyn aad la sheekaysato waxay muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin xoogaga la wareegay gacan ku haynta deegaanka intan kolkaan agta soo dhignay dib waxaan ugu soo noqonay taliska guud habeen saddexaadkiina waanu hooyan saaka intaynaan gudagalin safaradeenna kale iyo deegaanada ay gacanta jabhadu ku hayso waxaynu waqtigeena ku qaadan doonaa taliskooda guud waxaynu waraysiyo la yeelan doonaa saraakiisha jabhada balse marka hore waxaa halkan dhalinyarada lagu baraa isticmaalka hubka fudud iyo adeegsiga hubka waaweyn sidoo kale waxay ku bartaan shiishka waxaa dareenkooda leh dhalinyaro wax baratay oo si weyn waalidkood ugu tabcay oo halkan ku sugan laakiin nasiib darro badweynta dulmigu ay sahayatay kuwaasi oo haatan kelmida jabhadda oo qaarkood ridayaasha hubka waaweyn tababar ugu jira bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ahaa ardaydii gobolka Sanaag wanka u gashay waxbarashadii markii dambena nasiib u heshay inay dugsiga Sheekh tagaan waxbarashadii dugsiga Sheekh markaan dhamaysanay anigu waxaan ahaa waqtigii xilligii uu haystay wasiir Cabdi Daahir wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan ka helay shaqo muddo ka bacdi waa la geeriyay muddo badan markaan doondoonay shaqadii waxay noqotay ilmaan waraabsi markay ilmaan waraabsi noqotay waxaan ku biiray ururka dhaqdhaqaaqa ee sinaanta iyo cadaaladda oo hogaamiye Jaran Lacaafe waayo wixii aad qalinkaaga ku weydeen in qorigii lagu helo badalku maraya waxaa iyaduna xusuusteeda mudan qoomamo weheshada salka ku haysa daayar halka ku sugan oo kamida daayartii 1988 dawladnimadooda hoos joogay ahaa ardayda dabadeed dalkoodii laga dumiyay looguna bedelay tan iyo lama filaanta barraca u saartay 30 sannadood kadib wixii mustaqbal tiray waa ay hibanayaan halla maran kala sarraysiin mustaqbal ibeen aan dhammaad lahayn kadib hubka ayay qaateen halkan ayaanu qaarkood kula kulan anigu waxaan ahaa Cabdirasaaq dadkii 1988 waxaan ahaa arday baan ahaa standard 3 waxaan ahaa muraayadii la jabiyay ay jabiyeen jabhadii aslam way soo socotay jabhadii waxay dhashay inay ku dhawaaqno Soomaaliland oo inay noqotay inay noqon hoosta ka xidhano waxa dhacday markay noqolka hoosta ka xidhanay inaga oo qol hoos inaga hadii badankeeda leeyahay gabigeeniba Soomaaliland ay noqon inaga qolka yar in hoosta kaga jiro ba haddana waxa dhacday qolka hoostiisa inay ku heshiin weyn oo ka dilaa aynu ka si kala noqoto gruubo aynu si kala noqono hadii badankeeda leeyahay isla iscaburiyo dadkii hadii badankeeda leeyahay xiriir lagu rido hadii badankeeda ganacsiga xoog hadii badankeeda leeyahay ganacsiga laba qof loo xiro hadii dagaalkan soconaya wuxuu ka dhacayaa waa qolka hoostiisa qolkii waa jaban yahay qolkii maanta waa la jabsaday waxaanu leenahay cidda danaha gaarka ka eeganaysa shaashadan liidata ee Muusabixi waxaanu leenahay gruubadan ku jira waxaanu leenahay ka soo bax cidii hadii aad ka soo bixi weydaan cidii ku jirta waanu anaga ugu gelayno gacanteedu ugu tagayno ka soo saarayno waa la isweydiinayaa 30 sano kadib wixii dhacay waxaanu anaga mustaqbalkayagii sida ku dhacay ubadkayagii ku barbaari maayo hadaan ku dhalay qolka hoostiisa ku barbaari maayo ubadkayaga waxaanu u diiwaan waxaanu leenahay hadii badankeeda ay u doonayna mustaqbalkooda raadinayna waxaanu maanta u leexanaynaa danaha iyaga naga lumay dadka aanu deriskanahay gacmahaanu isqabsanaynaa talaanu isugu noqonaynaa tala midaysan baanu gelaynaa danaha iyaga nu tishanaynaa xoogaga halka ku simani waa kuwa dulmiga baabiinaya annagana ka tashanay Soomaaliland waxa weeye ciidamada waddanka ku siman
وإذا كي سومالان إبليس ملتري حقوقودي واي تودي بليس نمو إيه تودي وطني نمو إيه من نبع هدبا waxaway ninkii moodu haystay in dawlad Soomaaliland la yaada jirto wax jiraan ma jiraan caalamka Ilaahay baa dhinac laga biiraya waxaana dalkan rogay SNM baanu wax SNM la yaada ma jira xaraamiin ba Ilaahay naarta ku fogay mustaqbalka yagii iyo chance-kayga dhanba naga cayaaran anigu istaadana eed baa maanta dalka la burburiyay maanta raqal iyo buug dib isugu maqla meelaan haystay meelaan joogto garmaayo intaasi kadib waxaanu waraysi la yeelanay taliyaha jabhadda Koroleyl Caar waxaanu kaloo iyagana la kulanay qaar ka mid ah saraakiisha asaaska jabhaddan aanu asaasay waxa weeye markii aan arkay dhibaatooyinka ka jira iyo cadaalad darrada ka jirta dalkan ay xukumaan labada nin Maxamed Kaahin iyo ninka la yiraahdo Sabixi waxba laga qabanayn iyo dulmiga ka jira ayaanu aasaasay jabhaddan waxaad ka mid ahayd ururka SNM dalkii la oran jiray Somali Great waxa ka mid ahaydeen kuwii gacmahooda ku burburiyay ka shalaay santa natiijadeedii markay tan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim maalinba waqti baa la joogaa maalinta jahadaydu waxay ahayd in la burburiyo dictatorka ninkan militariga wadanka haysta laakiin waxaan dib u xusuustaa 1969 markii la inqilaabay dalka Soomaaliya ee militarigu qabsaday waxa jirtay in Maxamed Siyaad Barre 3 sanadood markuu haystay caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashadaba ay fuul noqotay marka waxa la oran karaa qorshahan iminka Somaliland إذا بتوبة وهايو وحلا نكره ولا بخسارة ما لا نكره مركب أنت قويفتين يقول كان سنة قلة حل الدولة دي سياد برا وحلا أرشدوا وربح قصارة وحلا قناع سياقات فربضن دكتور ما يدقوا فريد لاسقري وقوي فريد حوله هو كله في جرين قد سدين شادكم معلنا ودركتي وددي دركيسا وحبرشدي دركتي عافمات كذا ودركتي وسومرتي arrimaha bulshada oo dhan wad soo martay waxa la oran karaa waxyaabahan iminka iyo dawladnimada maanta lagu noolayo ee jirta Hargeysa gabalay ka shaqeyso taasna waxa weey leadershipka hogaaminaya ayuun baadeen مسؤولية له. وطهي. dadka deegaanka aan soo aragnay oo ilaa iyo jiidaha ciidankaaga sugan yihiin dadka beeraleyda ah iyo koox xoolo dhaqatada waanu kamarada la dul tagnay waxay ka dhawaajinayeen xaaladda Soomaaliland 30 sanadood inaanay waxba la lahayn waxay kaloo ka dhawaajiyeen inay talo isugu noqon doonaan talada ay sheegayaan ay kaga arrinsanayaan kamid ahaanshaha Soomaaliland sidan ay tahay maanta say looga mid ahaan karo ka general ahaan iyo ka jabhad ahaanba ma la qabtaan aragtida dadweynaha halka ku dhaqan waayo dadkani waa dadkii la baxay ururka SNM ay ka mid ahaayeen dadka lagu qiyaanayay xaaladan maanta jirta ay ka mid yihiin dadka aan kaashanayno ay ka mid yihiin bulshada dhulka ku dhaqan bay ka mid yihiin markaan xaqiiqada ku sheego Cabdirasaaq ilaa gobolka Togdheer ilaa Sool iyo xuduudeeda ilaa gobolka Sanaag iyo xuduudiisa wax ka qabsoomay oo arrimaha bulshada ay ma jiraan marka la mowqif baanu nahay oo isku tiirsanahay isku mid baanu nahay iyaga iyo kuwa kale ee reer Togdheer reer Sool dadka qaar baa xiriir amniga duulaan ku yihiin idinku ma fiktan baatiin oo dad
dulmi tirsanaya dulmi ka cararaya ciidamadaadu sama kuwaad halka ka abaabultay baa mise waa ciidamo kula mid oo sida saraakiil oo ka soo goostay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim markaan xaqiiqada ku sheego labadaba way isku jiraan saraakiil ka mid ah ururka SNM ka mid ah dawladda Siyaad Barre oo xuquuqdoodii weeyay iyo kuwa ka mid ah ciidamada labadaba waaliyo marka xaqiiqada dhabta ku sheego waxa weeye anagu ummadda ayaan briefing gareynaa ummaddaanu baftiinana in dulmiga laga baxo hor intaydan jabhadda aasaasin ma jiray miyaa weydeen xal kale maxay idin diidayna boorar qaadataan mudaharaadaan gadoodaan oo dareyska rogtaan xal ka horeeya jabhadda miyaa weydeen bismillah cabdirasaaq halka markan dib adigu ugu noqdo adigu waxa tahay ninkii wadankan u dhifay maxaa ka saaray miyaad qayrin kari weyday miyaad hadli kari weyday maxaa adiga ka saaray taas waxay cadeynaysaa in meeshii dictatorkii la riday joogo oo aanu dahrada golayn dadkii maxaa dadka loo xilxilaya maxaa imanka suxufiyiinta loo xiray maxaa aqoonta loo xiraya goori way ka farsan silsiladan goolis ilaa iyo xeebta waa jiid intee leeg baad gacanta ku haysaa ciidankaaga xukumaay markaan xaqada ku sheego wad ogtahay dhulka wad soo martay ilaa iyo laas qoray wixii ka sokeeya ilaa iyo xiis iyo mayr inta u dhaxaysa ilaa min dee bifnay ma sha Allah alxamdulillah ilaa iyo buraleyda qaantan go'ayna xaaladan ka waran maaday wakiilka yihiin madadka deegaanka wakiilka yihiin jabhadda dirsatay man dhexdhexaadiya taagantiin salaadiinta arintooda dadka mugdi baa kaga jira bismillah aan cadeeyo salaadiintu waxay ahaayeen salaadiin u dhalatay wadanka iyaga isxilqaamay qayb isxilqaantu ay leeyihiin boqol oo dawladda soo diratay way leeyihiin laakiin iminka waqtigan xaadirka lagu jiro waxba kama jiraan ka waran waxa jirta jabhad soo lagaga dhawaaqay sidoo kale awdal baa jabhadi ka jirta taadu waa tan oo ilaa iyo jiida xeebta ma jirta waxa lahayn soo leedahay jabhadahaas xaqada markaan ku sheego way jiraan waxa wax leeyahay bamlan waad ogtahay baran ciidamadii gobolka Sanaag way goosteen maamulkii dhammaan uu goostay barani waxa ka tirsan tahay gobolka Sanaag halkay ku sugan maanta waad ogtahay jira korneel kaaysa Abdullaahi xiriir baan leenahay ka ciidan ahaan qolo siyaasiyiintana xiriir baan leenahay booramo kale salaadiinta boorame saraakiisha haysta ciidamada xiriir baan leenahay kuwa qaatimo waan leenahay xiriir isku xidhanahay kuwa kale oo iyana qorlugu jooga iyaga laftooda xiriir baan leenahay dhammaan jabhadaha wax laga xukumaa dulmidiid dadka deegaanka ee ku biiray xoogaga ciidamada jabhadda dulmidiid waxaa ka muuqata dareen ahaan inay si weyn ula dhacsan yihiin kamid ahaanshaha jabhadda iyo inay heleen fursad ay kaga dhiidhii karaan dulmi 30 jir ah oo huga la huwaday adeeralkan joognaa waa Ashida waxay ka tirsan tahay gobol Sanaag horta anagu dalka laba talis baa ka jira waa taliska Musabbix iyo taliska yaga haddaan inay jabhadda anagu wax saxaafad la dhawarta marka hore ma taabano saxaafad mana arqaladayno ninka saxafiga waxaan ahaa wadankaaga xor ku dhaxmaro waa soo dhaweynaa laakiin xaga Musabbix ha u gudbin waa yaadu gudbo waa xabs isagii baa laga dhaxbaaraya wax kale markaan dadka waxaan u sheegayaa dadweynaha wax dawlad la dhahaa haba yaraatee inaan jirin aburin baa dalka jirta insha Allah laakiin waa laga bixi doonaa gobolka Sanaag walow uu sii kala liito Somaliland sheegashadeedu waxay uga dhigan tahay afduub aan hore garowshiya u hel haatan culays weyn saaran yahay inkastoo gobolada barigu isma dhaanto ay yihiin haddana waa gobol u agoomoobay dawladnimadii dadkan laga burburiyay dabadeed lagula shuraakoobay hayb iyo xigtaynu nahay xilligii dawladii kacaanka wuxuu lahaa gobolka Sanaag warshado dekadiyo madaaro iyo wax soo saar dalag oo la dhoofsho maanta intaasiba ma laha dadka deegaanka oo ahaa dad yowga lama jeerto waaga
ganacsatadooda waaweyni 100 bay kor u dhaafayeen maanta 1 iyo 2 jeeblayaal ah ayaa ka jira xilligan warshadii qorigu ma jirto dekedoodii waa la burburiyay warshadii kalluunka ha sheegi madaarkii ceeri gaabo ee 1967 diyaaradaha caalamiga ah ka digi jireen waa uu xidhan yahay wax soo saarkoodii beeraha waxa lagu ciryaamiyay kan Itoobiya waa ay daalan yihiin muddo dheer dalan baabiyay 30 sannadood dhulkan aan iminka ku sugannahay wax kale ha joogaane malaha MCH iyo isbitaal toona waxbarasho iyo digsiyo haba sheegi meelaha aan tagnay waxaa ka mid ah cirshiida xarshow iyo kuwa ku xeeran raadadka aafooyinka isbarkani dadkan ay ku reebeen ayaa waayeelka deegaanku waxay muujinayaan siday u soo ridatay damqashada dulmiga 30 jirka ah ee muddada intaasi leeg ay ku soo samrayeen waxaanu xoolaqato xoolaheena ilaa 30 sanood burbur ku jir dawladii hore siyaad barakada dawlad ma arag haba yaraatee bilays ma hayno xukun ma hayno wax alla waxaanu haynaa ma jirto baanada saxaafad ayaan u sheegaynaa la surud ciisida maxaan ku yiraahdaa gorgor maxaan ku yiraahdaa xarshow waa area fara badan population badan waa ku dhaqayeen wax la yiraahdo dawladda Soomaaliland halka ma soo gaari iminka dadkan waxay leeyihiin ama dawladna maamusho meesha wax noo sameeyaan helo daama meesha doonaan ku biirno marnaba tan maskaxdeedana ma gelin sidan oo kale bay dalku noqonayaan anu tii hore deesiyad baro soo shaqeeyay tan waanu shaqeeyay oo tan ciidan baan ka ahaa tii horena ciidan iyo shaqaale kale baan ka ahaa dawladda hoose baan ka shaqeyn jiray weligay tan oo kale uma soo taagnin from Somaliland oo dhanba maamulkeedu waa habsan oo wax allaale waxay dalka ka qabatay haba yaraatee ama loo sameeyay ma jirto deebaano waxaanu leenahay ama maamul hala sameeyo wanaagsan oo cadaalad ah reer baa reer xukumayana aqliga uma gasho hada ma garatay marka anagu taa waanu diidanahay dadku waxay u sameeyeen cadaalad ay u sameeyeen maamul ah baanu rabnaa dawladda wada leeyahay laakiin mid u gaara ma rabno weli dawladina way iman maxaatina oran isbitaal ma lihin hadii alla ba ku roon yahay waxa laale wax dawlad lagu dasatay xagaafka anaga sameeysan waxaan xaadana xitaa xagaafka mar qura ma eegin xitaa haadana looma keenano waa naga xigeen dadku wada kaxtay horta hadaa moodada kale kacsanayn wax allaale dadku waa kicid marba waxa magacoodan caara meel jooga war waxa jooga 3,000 caara jooga 3,000 caara meel jooga 3,000 hada ma garatay oo kacay mar rabaan inay dooyo wax ka dagaalamaan waxa ma doonayaan cadaalad bay waayeen way iska markaas ay warsan yalla hada waxay leeyihiin war ma waxbaynu weerarnaa war ma dalkeena baynu ka gubnaa war sidaynu yalla hadii odayaal la soo diro wax laga aqbalo xoqaal wax laga aqbalo horta waxa la wax la aqbalay ma jiraan anagu waxaan joognaa meel geesta oo aanu waxaan doono ka yeeli karo geesta baan joognaa Soomaaliland anigu waxaan qabayay ma tooyisa ubadkoodu waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan inta 25 jir u weyn yahay ee qoriga qaadatay waxa ka sii mustaqbal liita 5 jir iyo 10 jirada aan rajo lahayn hooyooyinka dhalayda ah tan tuulada iyo geed hoostii ku umuli kari weyda waxay u dhimataa iyada iyo ilmaheeduba umul aroon waa beeralay oo wax soo saarkoodu ma haysto suuq waxay qirayaan inay rubuc qarniga aan Somaliland irbadunu gelin xilliganna ay u horseeday colaado iyo inay buurahooda hubka ku garaacdo waxay sheegeen tala inay ka gaadhaan kamid ahaanshaha Somaliland inay ku hawlan yihiin dib ayaanu soo laabanay waxaanu soo marnay xeebaha intii aanu ka gaari karaynay halkani waa Saneeqaa Damaydh halkanina waa gadhka geelweyto oo ah halka ugu dambaysa ee jabhadu fadhiisinka ku leedahay abaanduulaha jabhada oo kamid ah dhalinyaradii koorsooyinka ciidan dalka dibadiisa u tagay ilaa heerka labaad soo dhamaystay dabadeed la duudsiyay dibadana u baxay ayaa halkan kula kulan halkani waa laas qoray caawa iyada ayaynu u hooyanaynaa waxaa baryay waagi
laas qoray 30 sannadood ee Somaliland sheeganaysa ma jirto haba yaraatee wax loo qabtay yaanba loo qabanay ballanqaad been ah ayaa ishaasi u yeelay hooyadii kalluunku waxay ahayd tu ildaran sidaasi oo ay tahay miisaaniyadda Somaliland iyada iyo deegaanada ay ka mid tahay waxa ugu jira sanad kasta 2% boqolkiiba 2 laakiin mooyee bal dib aanu celino taariikhda 5 sannadood ka hor halkan yaa yimi waa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo intaasoo wafdiya wuxuu dhagax dhigay dekada laas qoray wuxuu dhagax dhigay iskuulo wuxuu dhagax dhigay warshadii kalluunka iyo xarumo dawladeed waa saakee 5 sannadood kadib dhagxaantii ayaanu soo aragnay oo ciidu liqday dhulkii waa sidii taariikhii iyo dugsiyadii la dhisay waa kuwa qabuuraha u eg tani waa warshadii tanna waa dekadii kolley intaan magaalada joognay ama dhalinta aan nahay ka warqabta waxaan arkaynay dhagaxyaan badan oo kii yimaadaba uu dhaho halkan dhagax dhigay dhagaxaantu waa wada booroobeen oo dhagax la qaadaba wuxuu noqdaa wax kama jiraan 30 sano baanu beentaa noloku quraamayo oo lahaa halkan baanu dhagax dhigeena oo inta la sawirto waa igu sawir camal oo kale beentu waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu ka daalnay oo aanu maalin walba hadeer ma aragni marka halka soo marayso umadu waa iska waniye jabsanayd oo wax bilaa shaqo waa bilaa magaaladu waa bilaa system dawladeed kama muuqdo wax walba waanu soo aragnay waxaanu hadeer kolley ma mooro jabeeno waxaan sugaynaa dawlad khayr qabto ceelaayo ayaanu soo aragnay iyana oo ka mid ah dhulka Somaliland sheegato waa maqlaan Somaliland dadku se weli may arag daawadaya boosaaso ayaanu ku soo noqonay maalmo ayaanu waqti ku qaadanay iyada war ayaanu idinka haynaa hayeeshee barnaamijka boosaaso xiisihiisa leh waqti ayuu qaadan doonaa waana inoo iyo is arag maqalkeena dambe